bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa natiijooyinkii kulamadii shalay la ciyaare ee Euro 2020 iyo kuwa maanta la ciyaari doono waxaana barnaamijkeena ka marnaan doonin sida caadiga ahayd wararkeenii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar haddii muuqaalkeenu ku cajabina fadlan like inoo saar like waxa ay naga caawinaysaa in fiidiyoga uu asxaab badan gaaro mahadsanidin aynu ku bilaabnay shalay ayaa la ciyaaray saddex kulan oo kamid ah Euro 2020 kulankii ugu horeeyay ayaa dhaxmaray xulalka Hungary iyo France waxa uuna ugu dambeyn ku soo gabagaboobay gool ciyaartii adkeed ayaa ahayd midii labaad ee la ciyaaray shalay waxa ay dhaxmartay xulalka Portugal iyo Jarmalka waxaana 4 gool iyo 2 ay guusha ku raacday xulka Germany Spain ayaa bareejaha la gashay xulka Poland markii ciyaartoodii xalay ay ku soo gabagabowday gool maanta ayaa la ciyaari doonaa kulamadii saddexaad ee gruubyada waxa ayna ka dugnaan doonaan sidii hore uu socday Euro 2020 iyadoo maanta wixii ka bilowday kulamada ay noqon doonaan in group walba ciyaarihiisa la dheelo hal waqti group A ayaa ciyaari doona caawa kulankoodii ugu dambeeyay ee saddexaad waxaana xulalka Italy iyo Wales ay ciyaari doonaan 7 habeenimo waxaana isla waqtigaas dheeli doona xulalka Switzerland iyo Turkiga markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa halis ugu jirtay in ay weeso saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus sida ay qortay Bild oo ka soo baxday Jarmalka laacibka da'da yar ayaa ku fikiraya in xilli ciyaareed kale uu ku qaato kooxdiisa reer Jarmal markii uu wada hadal wanaagsan la yeeshay macalinka dhawaan kooxda shaqadeeda la wareegay ee Adi Hutter macalinkii hore ee kooxda Eintracht Frankfurt ayaa bishii Abriil la wareegay xilka macalinimo ee kooxda Borussia Mönchengladbach Neuhaus ayaa maamulka Liverpool u doorteen inuu yahay badalka ugu wanaagsan ee laacibkoodii hore ee Gini Wijnaldum ka oo si bilaash ah ugu biiray naadiga Paris Saint-Germain balse arintan ayaa haatan u muuqata in naadiga Rediska ay meel kale u raadsan doonaan xiddig ka dhexe ah kooxda Mönchengladbach ayaa dul dhigtay xiddigeeda lacag dhan 34 milyan oo pound waxaana kooxda Liverpool haddii ay damacdo saxiixa xiddigan xil ciyaareedka dambe ay dagaal la geli doontaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaar u tahay in ay jabiso rikoorka suuqa kala iibsiga Ingiriiska iyagoo doonaya saxiixa qadka dhexe ee kooxda Aston Villa Jack Grealish inkastoo saddexdii bilood ee u dambeysay horyaalka dhaawac ku qaatay 25 jirkan ayaa xil ciyaareed kale oo wacan ku qaatay kooxdiisa waxa uu dhaliyay 6 gool isagoo 10 kale caawiye ka ahaa Grealish ayaa in muddo ah la xiriirinayay inuu ka baxayo kooxda waxaana la wareedi muhiim ah ay la xiriirinayeen kooxda Manchester United xil ciyaareedkiina dhaafay balse sida ay daawacday The Telegraph waxa xiisaha ugu saldhiga adag ka imaanaya naadiga dariska la ah Manchester United ee Manchester City kooxda Man City ayaa diyaar la ah baa la leeyahay dalab ka badan 90 milyan oo pound si ay xiddigan xil ciyaareedka dambe ugu soo dejiso Etihad Stadium Grealish ayaa sanadkii hore saxiixay heshiis cusub oo 5 sano ah waxaana midaasi ay adkeynaysaa inuu si fudud ugu biiro kooxaha horyaalka Premier League tababaraha kooxda Sky Blue Pep Guardiola ayaa qarsan jaceylka uu qabo xiddigani waxaana wareysi uu bixiyay kadib kulan ay wada ciyaareen Aston Villa xil ciyaareedkii dhamaaday uu si wacan uga hadlay tayada Jack Grealish dhanka iyo Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa wali ku jirta raadinta weeraryahan cusub oo kooxda ay ku soo dagaalgashay xil ciyaareedka cusub Neera Suri ayaa haatan loo soo bandhigay weeraryahanka kooxda Stuttgart iyo xulka Austria Sasa Kalajdzic xiddigan ayaa ah ciyaaryahanka ugu dheer haatan horyaalka Jarmalka waxaana kooxdiisu uu dhaliyay 16 gool waxa uuna caawiye ka ahaa 6 kale Nicole Cagerini oo ah wariye wax ku qora Tutto Mercato Web ayaa shaaciyay in xiisaha Milan ee laacibkan uu yahay mid sare waxa uu sidoo kale tilmaamay in koox walba oo hesha saxiixa xiddigana ay sameysay ganacsi wacan marka loo eego da'diisa iyo tayadiisa kooxda Stuttgart ayaa ku qiimeysay 23 jirkan qiimo dhan 25 milyan oo pound waxa uu xiddigan haatan xulkiisa Austria uu ku matalayaa koobka Euro 2020 dhanka kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel ayaa ku gaaray mustaqbalka weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka Jarmalka Timo Werner oo la xiriirinayay inuu xil ciyaareedkan iska bixi doono garoonka Stamford Bridge Tuchel ayaa go'aansaday in laacibkan uu siiyo xil ciyaareed kale si uu u muujiyo awoodiisa waxaana maamulka kooxda uu ku wargeliyay inuu ku faraxsan yahay weeraryahankiisa Werner
ayaa dhaleeceen kulul la kulmay markii uu soo bandhigi waayay awoodiisa gool dhalinta ee laga filayay markii kooxda ay kula soo wareegtay 47 milyan oo pound xagaagii hore. laacibkan ayaa tartamada oo dhan u dhaliyay kooxdiisa 12 gool isagoo caabiye ka ahaa 15 kale, waxa uuna kooxdiisa ka caawiyay ku guuleysashada horyaalka Yurub ee Champions League. kooxda Chelsea ayaa in muddo ah la xiriirinayay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland iyadoo la sheegay in ay bedel uga dhigayaan Timo Werner, balse laacibka ayaa u muuqda mid sii joogaya kooxdiisa Borussia Dortmund. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid-na waxa ay haatan u jaleecsatay dhinaca weeraryahanka xulka England iyo kooxda Everton Calvin Lewin. sida ay qortay The Sun, macallinkii hore ee Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa diyaarinaya qorshe uu kooxdiisii hore kala soo wareegayo gooldhaliyaha reer England. kooxda Blancos ayaa diyaar u ah qiimo dhan 50 milyan oo pound si ay u hesho adeega laacibkani, waxaana kooxda Everton ay macquul tahay inay aqbasho qiimahaasi. laacibka reer England ee Calvin Lewin ayaa aqbali doona in mar kale uu ka hoos shaqeeyo tababaraha reer Talyaani, waxaan xidigani muddadii uu ka hoos shaqeynayay Ancelotti uu soo bandhigay tayo wacan midda uu u horsatay inuu boos koowaad ee xulka England kula dagaalamo Harry Kane. dhanka kale, kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa u dhaqaaqi doonta daafaca midig ee kooxda PSG iyo xulka Holland Denzel Dumfries xagaagani. kooxda reer Jarmal ayaa raadinaysa laacib ka dheela dhanka midig ee daafaca, waxaana haatan ay qiimeyn ku wadaan laacibkan oo xulkiisa ku matalaya Euro 2020. Sky Sports Germany ayaa daawacday in Bayern Munich ay u dhaqaaqi doonto laacibkani, balse waxa aysan aqbali doonin baa la leeyahay qiimaha naadiga reer Holland ay dul dhigtay xidigooda oo dhan 15 milyan oo euro. Dumfries ayaa xulkiisa Holland haatanba u dhaliyay 2 gool tartanka socda ee Euro 2020, waxa uuna xubin muhiim ah ka yahay kooxda uu hogaamiyo tababare Frank de Boer. kooxaha reer England ee Arsenal iyo Manchester United ayaa warar hoose sheegayaan in xaaladda xidigani ay qiimeynayaan. dhanka kale, kooxda Tottenham ayaa haatan u dhaqaaqday tababarihii hore ee kooxda Wolves ninka reer Portugal ee Nuno Espirito Santo. sida ay ku waramayso Talk Sport, kooxda Spurs ayaa haatan dareenkeeda u weecisay macallinkii hore ee Wolves, waxa ayna doonayaan inuu bedel u noqdo macalinkoodii hore ee Jose Mourinho. kooxda reer England ayaa la tababare la wareegay shaqada kooxdooda, waxaana ilaa iyo haatan ay wada hadallo guuldaro ku dhammaaday ay la yeesheen macallimiin ka badan 6 kuwa oo ay ka mid ahaayeen macalinkoodii hore ee Mauricio Pochettino oo haatan hogaamiyay kooxda PSG iyo macallinkii reer Talyaani ee shaqadii Inter iskaga hayaamay ee Antonio Conte. isbuucii hore ayay ahayd markii la shaaciyay in macallinkii hore ee kooxda Roma Fonseca uu aqbalay shaqada naadiga, balse ugu dambeyn labada dhinac ayaa isku fahmi waayay qaabka canshuurta lacagaha macalinka uu ka heli doono kooxda Tottenham. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa laacibkii hore ee kooxda Lyon Memphis Depay xalay. laacibkan oo heshiis uu kula jiray kooxda Reference uu dhamaaday ayaa wada hadallo kula jiray naadiga Blaugrana muddo dheer, waxaana ugu dambeyn si rasmi ah xalay loo xaqiijiyay ka mid noqoshadiisa naadiga reer Spain. Memphis Depay ayaa mar kale ka hoos shaqeyn doona macalinkiisii hore ee xulka Holland Ronald Koeman, waxa uuna noqonayaa saxiixii afraad ee naadiga Barcelona ay sameysay xilli ciyaareedkan kadib Emerson oo kaga soo biiray kooxda Real Betis iyo xidigihii hore ee Manchester City Eric Garcia iyo Sergio Aguero. ugu dambeyntiina xidigga khadka dhexe ee kooxda Barcelona Miralem Pjanic ayaa wada hadallo uu doonayay inuu mar kale ugu laabto kooxda Juventus la furay maamulka naadigaasi. sida ay qortay Corriere dello Sport, naadiga marwada duqda ayaa diyaar u ah in 2 sano amaaha ay ku qaadato laacibkeedii hore, waxa ayna haatan wada hadallo xagga mushaharaadkiisa ay kula jiraan kooxda Barcelona. xidiggan khadka dhexe ayaa sanadkii ina dhaafay ku biira Blaugrana, balse waxa uu ku guuldareystay in boos joogto ah uu ka helo shaxda macalinka reer Holland ee Koeman. tababaraha cusub ee Juve Maximiliano Allegri oo horey naadiga ay uga wada shaqeeyaan Pjanic ayaa maamulka naadiga ku wargeliyay inuu soo dhaweynayo fikradda in Miralem Pjanic uu ku soo laabto garoonka Allianz ee magaalada Turin. barnaamijkeena galabtana waa inaga intaa.